الشعب ودادا ليكن حبك للأرض وداد ليكن يومك maalin ayaa wiil yar ayaa waxa uu ka yimid dugsigii waxaanu yimi gurigii waxaanu warqad u dhiibay hooyadii waxa uu ku yidhi maalinkayga ayaa i siiyey warqaddan waxa uu ii sheegay inaan keliya siiyo hooyadii way akhriday warqaddii kadib indhaheedii ilmada ayaa ka burqatay waxaanay cod aad u sarreeya ugu akhriday wiilkeedii wiilkaagu waa wiil halabuura ah dugsiguna aad ayuu ugu yar yahay isaga mana laha macallimiin ku filan oo wax barta fadlan adigu iska wax ugu dhig sanado badan kadib markii hooyadii wiilka dhimatay isagiina noqday ikhtiraacyahankii ugu weynaa qarniga maalin isagoo baadhaya alaabihii hore qoyska ayaa waxa uu arkay warqad meel ku laaban waa uu soo qaaday waanu kala furay waxa warqadda ku qornaa wiilkaagu maskaxiyin ayuu bukaa ha u ogola intaa wax ka badan inuu dugsiga naga yimaado kadib waxa uu ooyay saacad ma garanaysaa cidda uu ahaa wiilkaas noqday mid ka mid ah ikhtiraacyahanadii ugu weynaa waxa uu ahaa Edison Thomas Alva Edison kii ikhtiraacay laambadda ifaysa waxa uu guuldaraystay in ka badan 10,000 oo jeer balse weli ma uu joojin isku dayga ugu dambeyntiina waa uu guulaystay marka isaga loo eego muu guuldaraysan 10,000 oo jeer balse waxa uu helay 10,000 oo hab oo aan shaqayn tani waa mid ka mid ah aragtiyaha Thomas Edison kuwaasoo bedelay caalamka kadib waxa uu ku qoray xasuus qorkiisa Thomas Alva Edison waxa uu ahaa wiil maskaxiyin u bukaa kaasoo hooyadii u beddeshay halabuurkii qarniga xasuusnow ha joojin dagaalka ilaa aad ka imanayso bartilmaameedkaaga ha isdhiibin maanta way adag tahay berri ayaa ugu daran balse maalinta xigta berri waa cadad ifaysa jabi jabidda ka hor inta aanay jabiddu ku jabin